halkana hadda hor taaganahay waa afaafka hore ee hoteelkii caanka ahaa ee Hargeysa Kilaab kaasi oo in muddo muran ka taagnaa muranka ayaa u dhaxeeyay Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale oo hoteelka xukuumadii hore ka kireeyeen iyo wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta taasi oo keentay in dhismayaal hoteelkani uu ka waday suldaanku gabi ahaanba la joojiyo haddaba si faahfaahin dheeraad ah telefishinka ku arintani uga helo waxa telefishinka la hadlay agaasimaha waaxda dhulka iyo guriyeynta ee wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Maxamuud Maal Cali Badri aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa runta dhismaha Hargeysa Kilaab khilaaf ba wasaaradda iyo suldaanka soo yar kala dhaxgalay dhismaha waa la joojiyay in muddaana uu taagnaa murankuna wax kala ma ahayna suldaanka iyo wasaaradda hawlaha guud waxay isla eegayeen heshiisyada uu ku deganaa meesha maadaama wasaaradda hawlaha guud mas'uul ka tahay guud ahaan waxa hantida guurtada la yiraahdo sharciyan heshiisyada dhismayaasha dawladda lala galaa waxay ka baxaan wasaaradda hawlaha guud si kastaba haatee heshiisyada uu haystay suldaanku waxay ka baxeen wasaaradda kale dhismaha line minister uu lahaa iyo madaxtooyada على كل حال وزارة iyo suldaanku markii ay isu yimaadeen suldaanka wasaaradda ka yarbooday dhismahana sidaas lagu joojiyay kadib markay in muddo taagneyd nasiib wanaag wasiir suldaanku wuxuu soo noqday wasaaradda hawlaha guud shalay ma ahayd doraad bay kulmeen wasiirka iyo suldaankii Suldaan Siciid Yuusuf oo ah ninka ku qoran kirada Hargeysa Kilaab systemka uu ku deganaa suldaankuna Suldaan Siciidna waxa ahayd qaab kiro cidii doontaabaha la gashay dabadeedna shalay ma ahayd doraad ayuu suldaanku dib ugu soo noqday wasaaradda hawlaha guud wasiirkana way kulmeen dokumentigii markii hore baanu ka rabnay inuu keeno uu nagala yar daahay wuu keenay waa kan imika aan gacanta ku hayo wasiirka igu wareejiyay doraad hadda waxaanu gacanta ku haynaa agreementkii ka baxayay wasaaradda hawlaha guud ee Suldaan Siciid iyo wasaaradda hawlaha guud wada gali lahaayeen waanu ku heshiinay suldaanka waanu diyaarinana qiimeyntii gacantaan ku haynaa isna qiimeynta wixii uu soo gudbiyay waanu haynaa wasaaradda hawlaha guudna waxa uu dirtay engineer agaasimaha waaxda dhismaha gacantaan ku hayaa waxaanu diyaarinana heshiis mideeya heshiisyadii hore uu haystay waanu isla ogolaanay hawshaasna waxaan filayaa inay wiiga naga gabagabowdo oo suldaanka dib markaanu u diyaarino dib uu fasaxaad u helo gacantaananu ku haynaa magacoo kale waa laga bedelay hoteelka arinta miyaa suldaanka ka wada aragtay waanu isla garanay inuu magacu ahaado magacii hore ee uu heshiiska ku galay oo ah Hargeysa Kilaab waxa la raacinayaa kaliya New Hargeysa Kilaab laakiin waanu ka heshiinay waa historical name waa dhismayaasha qadiimigu ku jira ka jad baa loo yaqaanay Hargeysa Kilaab marka magacii inuu meesha ka muuqdo waanu ku heshiinay suldaanka Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa